لكن من باجرتا خلاف معمول باجرة حياة بدلوا معمول قد يكون قلدان أو أن مقنصها مناسب كواهين أما أنا شاقاد قري وقت كان دولة هوسة أيا جرة هدي أن سيرة فاهية رنتي وحوي دولة هوسة ورتا مدة كوبا ما نوتشوي سرنتا مدة كوبا نيدا نشوي وحياة بدل يدو مرك هورا لي كان سحد أو أدوغيدين إن بدن حويال بدن اسكب بدلين أيها وسار داربا قدو آخر كي قواسطيني كي سمشة أنا قول واحد كان بينا أما ولا لا وقل ماشى رنتي سحد لي كان هورت رنتي واحد بدن أما ما ورن كره واحد بدن ما يقف صومين لكن وحوي يقف صومين وحي أنقف صومين ولي بقى مر أرنو قف صومين لا وقتي لقيت شريت دور الشو حساسية بعمل الدولة دوسة كلا دات سنة لقال الآن ظروفه مقارنة الديمو أكو حراي بالك هنا واحد بدل أو أنك حلينا ويشران واحد بدل أو قبيون الحليه وبعنا ويشران كوا قبيضة وباها قبيضة أو وقت كان حاضر كا أما أم كون ركوسي سعوس كريم ما من الدولة دوسة أياك أبوري خلاف كا سيب حقنا قالها الدولة دوسة ديان كالو مدة بدل أما أنت بدل وحلي ويديا شغالة مشاركودي مدة دي أنشوي دولة هوسة واحد بحس 6 بليون أو دينه أو أوتستاندين ديمي تاجنا واحد كم ده يعني عقبات كترسن عقباتها شرح كواس دين ما هين دين تاجن بهذا أوتستاند تشيكس تاجك سعودة أو تساحن وبانكنا العقول تدخل كعنت كويستا حيالي عقباتها يجوا ويران كلا كل واحد واحد كلو يدنا شرتي إلى العقبات كلا كل واحد حق مامور كسره ماير oo aan isagoo goleen markaa inaan meesha imaado dagaal badan ku galay sarunta report baan qoray dawladda dhexe ee markaa jirtay ee hore wali reportkii aduu talo laga siimoyay waxtee jawaabo qoraal laga mayso laakiin tirooyin badan baa laga siiyay runtii waxaan isku dayay markii aan meesha imid in dakhliga dawladda hoose aan kor u qaado tiinaan ku guuleystay kor baan u qaaday shaqaalaha aan mushaarkooda kordhiyo waa ku guuleysana tiino mushaarkoon kordhinay shaqaalaha cashuur qaado markii hore 500 ku qaadan jiray markaan mid meesha 1 milyan baan uga dhigay deyntiina waan ka saaray meesha waxyaabo badan loo qabsoomo kala xagga dhinaca wadooyinka horumar ayaa jiray oo aan ku qiyaasi karo imka ilaa inay 16 wado ay yihiin hal wado kaliya mooyee inta kale aan dadweynuhu wax contribution ah ugu lahayn wadooyinkaasina ay waliba ahaayeen wadooyinka rooga ee magaalada dhexmaray aragteen ama mid dheer ha noqoto ama mid gaaban imika hadideeda qaar socda way jiraan walow contribution la sheegay dadku inay bixiyeen solarkiyo ku socda airportka waqtiin waxyaalo badan oo maamul toosin ku sameeyay way jiraan laakiin khilaafyadan u dambeeyay imika hadii aan idin sheego wax keenay waxa weey labadii bilood ee November iyo October dakhliga dawladda hoose 100% 200 hoos u dhacay halkaan 200 milyan maalintii ka soo saari jirnay 50 milyan baa ayuu ku dhacay dakhligeeyo sababtuna waxay ahayd arrimihii doorashooyinka markaa taagnaa dadkii oo la iska jira markii hadiya jeer wax isbedelayaan dalkeena dadka xitaa ganacsiga ayaa aad u yaraada wax kala iibsiga oo in midna dawladda hoose kaabayaasheeda dhaqaale wax ku tirsanay cashuuraha dhulka ay ka gurato kale iyo kuwa guryaha dhulka cusub ee la sharciyeynayo marka dhammaan shuruuc dhulkii cusbaa ee la sharciyeynaya iyo kala wareejiyay waxa soo dhan bastaag waxa dhacday dabadeen inuu 2 bilood mushaarkii shaqaalaha lagu yeesho December oo ah bilaha u dambeeya cashuuruhu ay aad sageerkeeyeen sanadka marka la eego bilaha u dambeeya cashuuruhu waxay ku hadhaan dadka cashuur diidka marka cashuuruhu hoos bay u dhacaan bishii December saddexdii wiiga horeeyay waxaanu kor u qaadnay dakhligeedii oo aanu soo saarnay halka ku qoran dakhliga u dambeeyay wuxuu marayaa 2 bilyan 309 milyan iyo 500 waxa weey 1 week haddii la isu geeyo 3 week lacagtaasi waxay noqonaysaa 3 week u dambeeyay dakhliga soo saarnay waxa weey 5 bilyan 567 milyan 450 750 muddadii aan dawladda hoose joogay wiiga u dambeeyay imika
wiig ay ka lacag badan tahay 8 bilood ay ka dakhli badan tahay ima soo marin mana jiro su'aal baad oo baahan meesha ku jirta maadaama aanu 18 cisho ama 16 marka jamacayaasha laga jaro 3 wiig soo saarno lacagta 5 bilyan iyo 500 mushaarka shaqaalaha inuu bishii 900 yahay 100 bilyan iyo 900 yahay su'aasha u baahan qof kasto garaad uu isweydiinay wax weey way lacagta inta laga shaqaalay mushaar ugu dibay u leey mushaarka shaqaalaha u leey waa su'aal meesha ku jirta khilaafna la baroon bay ka tahay aniga waxa hooyaan mas'uuliyadeedu ay tahay in dakhliga dawladda san ku dhiman maamulka socodsiyo toosiyo shaqaalaha controlo shaqooyinkii activity socdaan manage gareeyo runtii dakhliga inta laga markaa soo saaray shaqaalihii ii soo saarayna aanay lacag qaad dawladin han gulla dhaaminayna han gulla nin dhaaminayo foosto biyela biyo ku shubay kow khilaafta sawkowa waxaan munaasib hayn lacagteedu inay ku baxdo dakhliga lagu isticmaalana oo sharciyada iyo miisaaniyada aan ku jirin de sharcigana nooma ogola dawladuna naga ogolaan mayso markii dawladda cusub xilka la wareegtay runtii maalmihii wasiirka arrimaha gudaha la wareegay iyo ka horba waxaan qoray maalintaas waxaan qoray report ka hadlaya duruufaha ugu xeeran iyo caqabadaha jira ee u baahan la soco ay soo baxday markii intii aan joogay meesha dawladda hoose wax kasta oo saada ka sax waxyaalihii qabsoomay wixii kale waxay ka dhaqaaqi lahayn maamulka sare ee dawladda hoose oo isagu u qaatayba meeshii inuu yahay shirkad private loo leeyahay ma xataa sida dhaqanku yahay ee maamulka dhaqankiisu iyo shirkadaha private-ka ee dadka loo shaqeeyo ama shaqaalaha waxyaabaha aan ka suura gali karin qofka shaqaalaha aanu suura gelin karin baa jira runta marka laga hadlo kuma sii socon karto san haddii aanay dawladda dhexe soo faragelin howlahan horyaalana ka qaaday waa maqlayseen ilaa shalay saxaafadda waxa ku jirtay ama suuqa ku jirtay oo dee weliba maamulka sare ka soo baxaysay in xogayihii la bedelay runtii bedelka qofku uu samaysan yahay shaqada aan hayo waxaan u hayaa qaranka haddii la garan waayo waa laga bedeli karaa haddii la garto waa la deyn karaa maaha wax ceeba taasi in la isbedelaan waa ogeydeen oo muddo badan waxa soo noqonaysa xogaye la bedelay waxaas maxaa keenay in dadku isweydiiyo u baahantay xogayahan haddii jeer la bedelayo waxyaalahan ka bartay meesha ay ka mid tahay xogayaha waxyaalahan isbedelo inta badan ee loo bedelo xogaye horta wuxuu noqday kursi ganacsi oo bulshada lafteedu ay ka ganacsato oo lacag saaran tahay markasta bedelkiisa markasta bedelka xogayaha in la bedelo waxa lagu bixiyaa lacag ka badan dakhliyadaa soo baxay dawladda hoose ama oday lagu laalusho ama in lagu laalusho soo doonaha la yiraahdo ama cid lagu kaambigaray ama cid ay ku xidhantay cid loo diro loogu soo loo mariyo marka xogay waxa leedahay lacagahan dakhliga soo saarteen cid kale jiifkooda ku raacday waxa halka aan ku cadeynaa meel qaldan bay maraysaa mismanagement baa jira haddii tagrifalka macni waxaad soo saartay meel of horta bilaadanka waxa weey qofka management u baahan qofka laftiisa kaliya management u baahan iska daa umadana xukumaysa aan dhameeyo inta xogayahan dhameeyo horta ka baxo oo iga soo dhagashay xogayu wuxuu noqday horta kursiga lacag saarantay ninkaas suuqa jooga loo xogayu soo doono lacag la siinaya marka meel ganacsiyo had iyo jeer dhaqaaqdiisa ay lacag ku jirto in la dhaqaajiyo ayuu horta noqday waxaan dhaqaajiyay maamulka sare shalay farsamo aan ku soo qaado shaqaalaha waa loo yeedho waxa la yidhi xogaye waan idinka bedelo xogayaasaan idin keenay iyay bedelo horta aniga arrimaha gudaha waayo maamulka sare dawladda hoose arrimaha gudaha meela ceeb iyo fadeexad ku ahayn dawlad in uu qof aan mas'uuliyad lahayn intuu shaqaalihiisu yeedho ama shaqaalihii xogayaha loo yeedho la yiraahdo waa la bedelay xogayaha dambe la shaqeeyay ma jirin bedelka haddii wax la bedelo warqadu aanay imanaysa igu soo horeynaysa ninka la bedelayana waa aniga maayarka wey runtii marka ma iman karto wada shaqeyn markay saatay waxaan u codsaday report baan bixiyay dawladda hoose qoraal baan ku siiyay qoraalkan ku siiyay waxaan dawladda dhexe qoraal baan ku siiyay qoraalka reportkaasaan jecelahay in dawladdu nooga soo ayaan ka sugayay inay ka soo jawaabto qoraal baan ku siiyay qoraalkan ku siiyay
waxaan dowladda dhexe qoraal baan ku siiyey qoraalka report kaasaan jecelahay in dowladdu nooga soo ayaan ka sugaya inay kasoo jawaabto